maanta anagoo farax badan naga muuqdo oo arday ilaa 16 noo qalan jibisay sanadkan 2018 madrasatu raxma aad aan ugu faraxsanahay waxaan ugu mahadcelinaynaa waalidiintooda dadaalkay dadaaleen ilmahan yani dhibkay la soo mareen iskool ka soo wad inta iskool ka soo wadaan ay hal daqiiqo ku diyaariyaan ee haddana dugsiga keenaan madrasada keenaan ilmihii iyaga naftirkooda dadaal badan ay muujiyeen iyo horumar aan dhihi karno waa muuqda oo sanadka markuu bilaabanay iyo hadda markuu dhammaaday farqiga u dhaxeeya waa muuqda maanta waxaan joognaa Somali Baravanes Community 2018 maasha Allah tabaarakallah waxaa ku jira wiilkayga Yaasir Xasan Cabdi oo graduationkii maanta Quraanka dhameeyay alxamdulillah waxaan leenahay ilmaheena mabruuk ilaahay inuu nuurka u saaro Quraanka waana ku faraxsanaa aad ugu faraxsanaa maanta sanad walbana saan oo kale u dhacda celebrationka oo xafladda xiritaanka dugsiga maanta waxaan ka mid noqday waalidka ilmahooda Quraanka u dhameynaya bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa injineer Baana Cabdalla Cali maanta runtii waxaan halkaan aan u imi inaan kala soo qayb galo xafladda qalinjibinta wiilkayga Cumar Baana Cali oo runtii ay tahay farxad qof kasta waalid ah oo macnaha oo dareemi karo runtiina waxa waaye My name is Matthew Wofford. I'm the Conservative Member of Parliament for the Hendon constituency. Today's graduation has been a fantastic opportunity to celebrate the success of so many people. Nothing in life is easy and we have to put in effort, but the efforts that's been put in today clearly shows the results that young people have achieved. And these are the young people who will be the leaders of tomorrow, inspiring others to achieve greatness, achieving greatness on behalf of all our society, and most of all, actually achieving something that doesn't come without simply hard work. marka kulli waxay muujiyeen horumar cajiib ah waxaa kale oo noo ziyaad sanadkan alxamdulillah arday badan oo sanadooyinkii hore dhan mutafawqiinka ahaayeen inay sanadkan oo teacher training oo tababar oo macalinimo loo gudbiyay oo iyagana ay muujiyeen dadaal aad u fara badan iyo level kale oo waxbarasho oo iyagana lala galay waxaa aad ugu dadaalay macallimiinta madrasada waxaa ka mid ah ustaad Cusmaan Qaadi waxaa ka mid ah ustaada Fawziya Maxamed Cali Aasha Maxamed Cali Asma Maxamed Cali ustaad Zakariya oo aad ugu dadaalay ilmahan iyo ardaydan iyo anaga oo kaalmay marmar aan ku kaalmeeno alxamdulillah ilaahay noo kasay المهم sanadkan ma sha Allah si fiican aan u moodnay waxaan rajaynaynaa sanad walba sanadku ku xigana aan ka sii fiicnaan dadaalkaas ama juhdigaas badan la geliyay waxa runtii kaalin weyn ka qaatay xaskayga oo runtii every weekend maaragtay isbuuc kasta keenay jirtay waana wax aad loogu farxo diiniyana wax loo baahan yahay in carruurteena aan ku dhiirigelino Quraanka waayo Quraanka wuxuu barayaa kaliya ma aha inay bartaan Quraanka wuxuu kaloo barayaa adaabta waxa lagu baraa dugsiga sida loo dukado salaada waxay kaloo barayaan fiqiga waxa kaloo la barayaa maxaa la dhahaa xadiidka ma sha Allah runtii Ilaahay khayrna ha siiyo dadka macallimiinta ah I'd like to take the opportunity to congratulate each and every person who received an award today, and indeed to their parents and their teachers, their grandparents and their other siblings who not only helped, supported and encouraged them, but actually showed them that studying and working hard does provide a great benefit for the future. runtii maanta farxad bay ii tahay in aan wareysiga qaado TV-ga ha noolaato macnaha wax weyn buu runtii u tiraya bulshada Soomaaliyeed maantana waa maalin aad noo farxad weyn noo gelisay oo qalinjibinta dugsiga oo isku imaaday hadalku ku badnaanayo marka waxaan leeyahay ha noolaato baxda saxafiyiinta marka insha Allah waan wareysi mar kale waa maalin farxad weyn insha Allah
والله runtii aad bay noo farxad gelisay qalinjibinta caruurta runtii wax la soo koobi kara ma ahan macnaha waa dad oo ma ogtahay iyagoo la mid tahay iyagoo wadankooda jooga bay la mid tahay oo runtii oo diintooda baranayo oo ma ogtahay oo dhaqankooda xor u yihiin runtii waa arin aad u farxad weyn way runtii إن شاء الله سنة صوص عدنا وحام بلاوي دونا ومدرسة إن شاء الله بيس كينا مقر كينا عصب ومردو نلو دمين دون إن شاء الله سبتمبر مركا إن شاء الله سنة صوص عدنا أسأرك دونا هرمر أو كفي عن إنت هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته